جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا من حنينا أو ركعنا من حنينا أو ركعنا لبيك ربي روحي وقلبي لبيك ربي روحي وقلبي عدنا نلبي hooyooyinka way aragga ah maxay u soobeynayaan dhankooda furiinka faraha badan ee xilligan Soomaalida ka dhex jira waxayiikum taxiyatu islaam ala wahiya salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh ilaahay baa mahad leh furniinka waxa sababa ragga iyo dumarka iyadoo ay sababtu tahay alla ka cabsi la'aan saad ogtiin inagu waxaan nahay dad islaam taladooda ama go'aankooda uu yahay go'aanka ilaah ama sharciga ilaah kaasoo ah kitaabka quraanka iyo sunnada nabiga ilaahay sidoo quraankiisa ku sheegay isaga inagu filan kitaabka quraanka iyo sunnada nabiga waxaan leeyahay dadku qaadan lahaayeen sharciga islaamka ama sunnada nabiga furniinku u yaraan lahaa waayo ilaahay baa kafa billahi wakiil ama alaysa allah bikaafin abda hadii aan ka hadlo qodob sababa inuu qoysku dumo oo ay sababto gabadhu hadii ay markeega hore ahayd mid dhaqankeega diineed uu fiicneen oo lagu soo doortay qurux waxay sababaysaa in reerkii dumo waayo baahi uma adkaysan karto risiqa sidoo ku yimaado ma taqaan cilmi ma leh ma taqaan xaqeega sidii ay wax u qaadan lahayd ma taqaan xaqiisa sidoo dulmi ugu dhici waxay tahay mar walba tii hawadeeda la ciyaaraysa marka waxaan leeyahay gabadhu markeega hore hadii ay ahaan lahayd qof diin leh oo wanaagsan qoyskaasi ma dumeen dadka intooda badan way kala wada dhaqan duwan yihiin ama kala dabeecad duwan yihiin laakiin inta badan dadka waxa sima cilmiga ama sharciga ilaahay iyo sunnada nabiga kaleey salaatu wassalaam wabillahi tawfiiq bismillaahir rahmaanir rahiim waxa furiinka sababo ragga ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu banay afar masna wa salaas warba ilaahay ayiri ilaahay ragga wuxuu ka dhigay arjaal qawaamin cala nisaa marka raggi waxay u badan yihiin inay haweenkooda ka cabsadaan waxay qabaan gabar ama laba qabaan gabar ay rabaan walaal inay guursan muslim waa loo tagaa guur ay laga dalbanaa ma ka aha in ilaahay dartiis gabadhaas mustaqbalka ma rabe wuxuu ka rabaa inuu ku meedo naagtiis kale ka cabsanaya intaan aragnay oon taabnay oon aragnay oon koonjo keen ama cadda wala xisaabe gabadhiis kale ka qarinaa gabadha markay maqasho gabadhu qabiixaadkii uu guursaday gabadha hore ku sii deynaa ma baqbiyo qarqarna ku qarnaa ilaahay diintiisana taas maxay nooguma sheegin xadiiskana wasallallahu alayhi wasallam nooma sheegin aniga asal jeey igu dhacday gabar yar oo cidooda ka soo kaxaystay oo aniga korsaday cidoodan wax yar biil baan siin jiro gabar ay kaalmeen jirtay gabar inkay qaangaartay wiil gabar intaan ka dhahay gabar ana haayo gabar yaa u guuriyay wiilka gabar markaan guur cidoodii aan u sheegay cidoodaas way diiday cidoodii gabadhii saxan ay gabadha cidooda ugu soo dhameeyay markaan gabadhii wiil ku diray todoba ko kala baxay oo aniga waxa bad mas'uulka ana ka mas'uul ana wuxuu keen leh gabadha kulkay todoba ka waxa laga soo furay bila sab maxaa dhacdaan hooyo aniga iga imaad gabadha iga malayna leeyda marka inta badan waxa way gabdhii waa la qiyaameena guurka waa lagu soo degdegaya ayagoo reerkooda jecel in dhaqtar rabaan oo ninkii u gala u baxa booda dhacaya lu furaa midda kale qodobka yar ku darsanayo waxay tahay qodobka wiil iscadiyo ma dhamaanin macnaha gabdhaha marka la guurinayo loo tagaa la raadsanaayeen waxa lagu raadsadaa afar shay ayaa nabiga bani lagu raadsado wala jamaalaha wala maalaha wala nasabaha wala diinaha gabdhii diin lagu raadsado qurux baa lagu raadsadaa haddana tarbiil ah baa lagu raadsadaa ragga inay ka fiirsadaan gabdhaha qarinayaan oo intay guursadaan niyad galiyaan ay sii deynayaan intaasan soo gaas bilaa bismillaah ana waxaan ku darayaa midka oo guurka isagana wiilka marka maxaan ku dhaaday tarbiyada xagga gabadha tarbiyada marka laga hadlo gabdhaha oo la soo tarbiyadeeyay oo ilaa maalinkii la dhalay ilaa maanta marka ay soo gaaraan ay guur soo gaaraan ilaahay subhanahu wa ta'ala uu soo gaarsiiyo wiil loo dhiso oo halkaasi maxaan ku dhahday lagu guursado deedna wiilka waxa dhacaysa in kasta oo qadar raxmaan ay tahay haddana isagoo oo xitaa aan gaarsiinin oo xadiiskii rasuulka ay ahaa 7 cisho ina gabadha lala galo aan 7aadkiiba gaarsiinin 4 maalmood ayuu maxaan ku dhahay gabadha in kaga tagaan wiilasha qaarkood kaga tagayaan marka waxa weeye sabab la'aan taasina guurka sabab la'aanta weeyaan ee furiinka sabab la'aanta markaasi inaytiyo tarbiyad dhan walba ka dhisan oo la soo tarbiyadeeyay islaan lagu soo tarbiyadeeyay maxaan ku dhahday akhlaaqadeeda sida ana diin ay ku soo tarbiyadeysay hooyadii dhan walba ay ka soo dhistay waxa in kuwa saas loo soo dhisayna taasi ayaa ku dhacda iyadoo wax sabab oo loo eegaya aan jirin
taasina ilaahay lagaga cabsado oo hal iska daayay ayaan leenahay kulli qofkana qadar raxmaan ayaa soo gaaraya qadar raxmaan baan iyo haysana wixii soo gaarina assalaamu calaykum magacaygu waa umul khayr waad mahadsantihiin bahda idaacadda islaamiga ee alfurqaan aniga fikirkaygu wuu kooban yahay kumana dhisin cadiifad aan ku difaacayo dumarka amaba aan ku ammaanayo ragga laakiin waxaan taabanayaa hal arin oo muhiim ah waxaa in la ogaado mudan inay jiraan dumar dhib badan oo dhaqan ka dhigtay furiinka kuna faana 30 ayaan kala tagnay ama 40 welina u heelan kuwa kale oo ay sii kala tagaan dumarkaas waxay marin habaabiyeen macnaha guurka ee ahaa wadadega xasiloonida iyo awlaada waxayna ka dhigeen ganacsi tusaale way guursanayaan ayagoo dalbanaya meher badan 2 bilood kadibna waxay ka shaqeynayaan in la kala tago markaasna waxay qaadanaysaa lacagtii badnayd niman kala dagi karo oo badan awgeed ayaa haddana waxaa dhacaysa inay mid kale sidaa u guursato haddana furiin ka shaqayso haweenka noocaas ah ayaa jira oo aan dhihi karo waa kuwa sharafta ka dilay dumarka Soomaaliyeed raggana u sameeyay in aysan lahayn raggana dabcan way ku jiraan kuwa saas oo kala ah waxaana markaasi oo kale muhiim ah in qofku uu iska fiiriyo qofku uu guursanayo nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri mu'min 2 mar god laga maqaniino haddana waxaan arkaa dad 50 jeer la qaniino Soomaaliduna waxay tiraahdaa mar idage Allah dago 2 mar idagana waa doqonnimaday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaah furitaanka waxa keenaya ninku markuu guursanayo ha eego guri ku guursanaya sidoo yahay iyo goobtu ka guursanayo Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa nin aad kaba ka talanayso kabiisa la eega ninku ha guursado gabadha markuu guursanayo ha soo eego oo ha iska hubsado oo guriga uu ka guursanayo ha soo eego inay gabadh tarbiyadeysan tahay inay gabadh maxay haytay hooyadeed soo dhisto gurigooda si abaheed ku maamuleysay ay soo baratay tahay gabadhuna Soomaalidu waxay ku mahmaadaa gurigoodana wuu qabaa guriga kalena waa ku dumaan xaqiiqtaas ay yaqiina marka waxa aan oran lahaa ninkan uu guursatay oo degdegtay oo guursato guuruna gabadhu soo eeg tiraahday qurux badan gabadha inaad hubsato oo aad gurigeeda soo eegto midna waxaan ku waaninayaa gabdhaha walaalaha ah ee gabdhaha dhalay inay gabadha soo baraan diin oo gabadha soo tarbiyadeeyaan oo gabadha ku soo dhaqaaleeyaan nacam inay gabadhaas hadii ay kacdo guur ka gali lahayd oo ay ka guursan lahayd inay ku soo tarbiyadeyso ku soo toosiso oo ay tiraahdo sida guurku oo ay gabadha hadhow kaaga toosi lahayd ay soo hagaajiso midda labaad rag waxay dhaliil ku leeyihiin furitaanka oo degdeg ay ku keenayaan marka ay gabadha ay guursanayaan mid bay guursanayaan midna way ka tagayaan iyadoo aanay hubsan siday tahay nafteeda dhibaatada ay qabto waxa ay tahay iyagoon ogaan ayay tagayaan gabadh kale soo guursanayaan gabadhii miskiinta ahayd ee baahnayd waxay imanaysaa inay xanaaqdo oo tiraahdo maano intaas oo sano u soo baahnaa waabay diin baabay leedahay intaas oo sano aan u soo baahnaa maanta miyuu guursaday wuxuu ku guursado qaba ragga walaalaha waxaan oran lahaa iska ilaaliya guurka oo maxay haytay iska guursiga ah macna aan ku socon hala iska ilaaliyo furitaanku keenaya waxa laga yaabaa reerkiisa dhisnaa iyo awlaadiisii dhaqnayd in halka ku dunto oo ku burburto qodobka saddexaad ee anigu aan nacam qorshahayga ka soo saaray inaan maanta waaqaca keeno in gabdhaha walaalihii ee lala guursanaya ilaahay ka cabsadaan raggu 4 baa ilaahay u baneeyay ha u samraan waaqaca imanka jooga ha ogaadaan raggan waa shahaado nin waliba wuxuu taagan yahay waari mayse wiil ha ka hado inuu ilaahay wax ka reebo rabaa ha u samraan yay degdegin saasan ku soo gabagabeynaya assalaamu calaykum wahaga kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah hooyooyinka Soomaaliyeed oo iyaguna aragtidooda ka dhiibanayay waxyaabaha u sababta ah ee furiinka faraha badan imikana waxaan fursadda wax ka siinaynaa qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed iyo aragtidooda ku aadan waxa u sababta ah furiinka bismillaah wa salaatu wassalaam ala rasuulillah marka ugu horeysa meeshan waxaan ku salaamayaa nabadoonnada iyo Sheekh Jaamac iyo nimankan idaacadda oo Ilaahay u fududeeyay in ummadda xogta iyo dhibaatada jirtay dadka ay gaarsiiyaan Ilaahay u fududeeyay marka hore dadkaasaan meesha ka salaamayaa bacdi salaam waxaan rabaa meeshan inaan uga hadlo arrin yar oo muhiim ah oo u malaysa inay ka tageen odayaasha iyo sheekha iyo Ilaahay barakeeyo oo ah guurka taasoo ah gobolka Banaadir furiinka aad ugu badanayo oo ay ugu badan yihiin nimankan la leeyahay diyaasbarada dibadda ka imaahayaan
hotel uu degaa niman dalaalaha u shaqeeyo beledka loo galaa cidii waxa looga sheekeeyaa nin dibadda ka yimid gabadhiina rabo gabadhi cid lacag lagu indhasar caada hay'ad baa ka dhibtay waa barnaamij laga shaqeeyo muddo badan gaal ay u fadhiso waxa la yiri gabdhaha la waayaa la yiri waxa dhan oo reeraha ay ku dhaqan yihiin diinta ay ku bulaasho waa dhalmada islaamka marka gabadha niyadaaba laga dilaabo waa 15 bari oo gabadh iyo baabuur isku keensaa baabuurkan qola soo gade gabadhaan qola kala keenay 15 bari oo haysa waana ka wada tagaa ka dhuumaa hatta waxa dhacday nin dibadda ka yimid oo hadda anigu meeshan aan saas magaciisa aan u fahamsanayn shaydaan gabaro inta saas oo kale loogu raajay oo yiri lacagtaasaan bixinaa lacagtii wuu siiyay hotelka habeenkii wuxuu sameeyay lacagtii meesha gashato kala baxay irido hotelka uu qofulay subaxna diyaarado ka raacay dadkan waa ajaran yihiin ninkan dibadda ka yimid waxay u maleeyaan inuu nin fiican yahay maahan waa nin ama gaal u shaqeeya ama jaajuus ama shaydaan oo ilaahay iyo rasuulkiisa aan ka seenin gabdhaha ku aamininaha waxyaabo badan oo xamarka dhacay oo gabdhihii lagu baabashay mar dhow waxaba laga yaabaa in gabar la guursadaba la waayaba waana waxyaabaha gaalada hadda ay mashruuca ay ku bixiso oo dadku ay ku gumaadayso muslimiinta meel kasta kala diray gantaalna waa tuure gabdhihii waa gumaade rag waa gumaade meel ay dhaafaysa lama arko hadda furiinka aad u batay marka dadka waxaan ugu sheegaa in nimankaas diyaas barada oo dibadda ka maaha gabdhaha laga cishto sida shaatigii isaga bedelayaan laba bilow maqnaaha oo soo naqa hadana hotel kale u degaa iyo meelan la ka saynin qolo kale ka doonaa gabar konton iyo waxa marayna isugu faanayaan 48 iyo konton mara ku sheekaysanayaan waa nimankan dibadda ka maaha oo diyaas barada dadka marka waxaan u sheegaynaa CD hatta ayaan dhaweeytay woo fashilay kaas kaliya maahan waa raxan ay u socdaan diyaarad walba keenay kuwiisi waxay u jiraan dibadda meeshaas oo mutaqaana geystay iyo fasahaadka kuwaana uu ku dheeraa kuwiisina uu ku ciyaaray kuwa dhiman waxa la yiraahdaa xamar ugu tagaalida oo nabadda qabo yay qabina la yiraahdaa gabdhaha guriga jooga laga soo baxo gabadhnimadeedii mustaqbalkeeda marka lagu ciyaaro qalaas markii dambe loo iska dabarsanaysa meelaha iska wareegaysa darbiye joogay noqonaysa waxa kale oo bajiraba tusaale ahaan baraata iyadana nin kale oo isagana diyaas baradaan oo diin laabayalka wax diin mana nimankan diyaas barada la iska fiirshay dibadda ka yimid hotel uu degiyay gabara loogu yeeray oo qoladii dalaaleyda asagoo ilaa meel tigi ma kaliya wala ilaaliya gabara loogu yeeray gabartii markii loogu yeeray hotelka uu kaansaday oo lacagtii uu ballan qaaday ku booday gabadhii wuxuu yiri ciidamo wacday wuxuu yiri laga baxsho gabadhii waa qeelasay tolbeelayo yaa ka dhacday gabartii nimankii oo wacday niman kamid ah ayadii siyaashan waraatuugi oo qaanka waxa la yiri gabartii garaam waxa siyaal anaga inta noo wacday gabdhaha nagu diraysa lacagtii bara looga qaaday dhibaatay kala kulantay fiiri jirkeedu waa lagu ciyaaray lacagtii waa lagu boodaa too kale lacagtii habeenkii laga xaday irdaal lagu xiray noocaas la wada maraa marka dadkan waxa la rabaa gabdhaha waagi hore waxa la dhigi jiray gabadha nin diin la siiyo maanta nin diyaas bara la siiyo taaganta diyaas bara Uganda islaga loogu xilaa gabadhan fasahaad waaye waa faraceeda meesha ku baabaa iyo wanaageeda iyo khayrkeeda meesha ku dhumaaya roy gabdhaha diyaas barada iyo Amazon ta kala deegu wareegaysan iska dhaafa intaas aan idin sheegay dadka Soomaaliyeed oo muslimiinta meel kasta ay joogan nimanka diyaas barada oo dibadaha ka imaanaya la iska fiirshay qaarkoodna cudur ay wadaanba gabdhaha kamidana saas oo kala warkeeda AIDS inay ka qaadeen dibadda ka yimid oo muqallas oo loo soo raashay AIDS ay ka qaadaba lacag iska dhaaf dadkana waa ugu digaynaa ummadoo dhan insha Allah ta'ala saasa inoo balan waxaan raacin lahaa furinka waxyaabaha keenaya horta dadkii ka hadlay odayaashii horta marka hore waxyaabo badan bay ka hadleen laakiin si qaybta ay ka tageen haddaan dhinacayga ka eego waxa weeyaan odayaasha ma taqaana qayb bay ku leeyihiin sababtoo ah gabadhii waxay ka leexinayaan qofkii ay jeclayd bay ka weecinayaan qof kale oo dhaqaale ay ku raaceen ay gabadhii siinayaan taas ayaa keenaysa in gabadhii iyo ninkii isfahmi waayaan sababtoo ah qalbigeedu ma jecleen qofkii la siiyay ee lacagta uu odaygu ku raacay abaheed marka waxaan ugu baaqi lahaa odayaasha wax badan baad soo shaqaysateen hanti iyo adduunyada ka soo shaqaynayseen gabadhaha rabitaankooda ha ka weecinina ilaahay uga cabsada guurkana fududeeya saas ayaan leeyahay iyaga u sababa saas marka adiga doodaada ama fikirkaaga waa in odayaasha laftigooda ay qayb ka yihiin ama aabayaasha furiinka faraha badan ha qayb bay ku leeyihiin dibadda laga soo wacaa waxa la leeyahay hebel oo Mareykanka jooga Yurub jooga Sacuudiga jooga oo lacag badan haysta ayaa gabadhaada soo doon raba diaspora waxa ma haysto ninkan gabadhuna waxay ku kalsoon tahay ninkaas ay isku meel ka soo koreen ama is yaqaaneen nin ayna aqoon u lahayn ayna rabin ayaa lagu qasbaya taas keenaysa britolna way isfahmi waayaan marka gabadhii waxa keenaysa qalbi jab kuriya waxa odayaashu qayb weyn bay ku leeyihiin kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhalinyarada haddaan u guda galno saameyntiisa wax walba hay saameyn bay leeyihiin nabadoon kufridiid maxaad nooga sheegi kartaa saameynta furiin waxa ka dhashay wax aad iyo aad u tiro badan oo dhibaato ah
feerista horta waa wax oo naxdin leh oo wanaagsaneyn sida sheekhuba nooga sheekay horta marka feerista labada qof ay kala tagaan reer ku dumo horta waa khasaar bulshada muslimka ku timi marka koowaad marka labaad ilmihii labada qof waa dhalayeen cunug bayna dhaleen ama laba ay dhaleen qof waliba marka wuxuu doonayaa nolol buu qof kale la doonanaya marka kaasuna halkaas ka baxay kaasuna halkaas cunugii meesha looga tagaya marka waxa weeye waxa laga yaabaa in labada ayeeyo u mid qaato isagoo aad mooday agoon iyo rajay oo ciira leh inuu hooyo ayeeyo waxa u dhex taagan yahay muqdisho lagu dhalay ama gobol waxa lagu dhalay magaalo lagu dhalay oo labada cunugba wax laga yaabaa labada qof oo dhan mutacallimiin hooyo oo mi jirta kolka loo geynayo caruurta waxaru qoraa ka noogaya waadaad aragtaa naxaysa dhibaatadaas uu keena wuxuu kaloo keenaa inkastoo dumarka Soomaaliyeed aad iyo aad ay u karti badan yihiin oo horta marka caalamka la yiraahdo dumarka Soomaaliyeed hadii la iga sheekay anigu wax badan dabada kuma noolayne hadii la iga sheekay dumarka Soomaaliyeed dumarka karti badan ma jiro waxaad arkaysaa inay tiraawar ninkani markay isfuraan ilmaheeda qaadato laga furfurin ama lagu bilaabo ayaa lagu bilaabo boqolaal baad ku arkaysaa suuqaya iyada u iibinaya oranaya anu guurba ma rabo kuwana korsanaya wiyamaha ila bil oo ninkii bil kuma siiye yeeladii soo ma aragtid wayo nin kale ku soo kaaminayo le ay oranayaan war hadaad ilmaha nin baa igu nacay hadaad ila bisan ilmaha korsanaya hadaad doonayso ilmahayga ku gooy waan ku raacay oo ila rab ilmahayga way ku qasabto markaa nin kale waad arkaysaa uu korinaya nin kale korinaya caruurtan ka dhan kuwa damba u dhaliyo kuwa isku korinaya kiina halka qaad ku cunayo oo anuu iska xugmooyo haduu doono ama lagu leeyahay uu tarhiimo meelahaas ka dhacay lagu leeyahay oo waajina lagu leeyahay laakiin aan la soo taaban bakaray marka waxa weeye taas waxa horta lagu amaani karaa dumarkan sidaas loogu amaani karaa waxyaabaha ka dhasha kala taga waxyaabaha kale oo ka dhasha oo finnada iyaduna waxa weeye qofka sameeyay xuma ku dhacaysa markiiba markaad u timaadeen gabar garooba oo da dhashay qurux badan oo hal da dhashay oo u timaado wada isleedahay talo baba dhalinba oo ay ku tiraha garoob baan ahay qaqabad isku oranaysa dadabana waxa ku soo baxaysa marka koowaad ku soo dhacay qalbigaaga talo maxaa lagu soo furay markii shaasada ku soo fuulaysa markii muslimaarta gabadhii cilad bay leedahay soo maaragtay marka waxa weeye taasuna waa mid tii kale waa taas oo shariicadina waa caayaysaa ninkii waxa lagu leeyahay warqooq iyo kibir baad u jeedaa guurba uma jeedaa la dhigi karaa waa ka sheekhu ka hadlayo waxa la doonayaa inaanu qofku mas'uul sax yahay ninkii uusan gabadha kaftan iyo ciyaar ku furin hadduu marka sidaas sameeyo isagoo inta qasaaro wax ka qaatay sidoo kale cidlo leeyo gabadha hadii la yiraahdo gabadhu way iswareystaan oo rag ay ka sheekaystaan si in bari moogta hadii afka isku midana walaalkaas muxuu yahay oo rag ay ku jiraan inta moogta wargaas ilaa naaw waa furiin meedho naaga waa furaayo waa furiin garo kaas ilaa ay dhaafika laba maalmood ba hadal la isku tuuray oo suuqa xoogaa seeta la iska eegay markaas mid yar afku isku dhaweynaysa naakaas muxuu markaas naaw waa furiin meedho naaga waa furaa markaas ilaa waa dhaaf sunacada ayaa meesha ka baxaysa waata aad baad ma santahay nabadoon guulid hay saamaynta ama natiijooyinka ka dhashay furiinka maxaad raacinaysaa waxaan raacinayaa horta sidii walaalka u sheegay marka hore gabadhii samcad xuma ku dhacaysa anu waxaan soo gaaray iyadoo gabadhii nin furo aan la guursan oo gabadha mustaqbalkeedii meesha ku baabao oo ay ku doqowda iyadoo dhalin yar gabadhii samcad xuma ku dhacaysa tan kale dadkii xididka ahaa oo shalay wanaaga isku guursaday oo maaragtay qaraabada ahaa oo gabadha qolana soo doontay qolana bixisay furiin markuu yimaado waji gabax baa dhacaya oo dadkii way kala dhimanaya waxa laga yaabaa gabadha iyo wiilku inay qaraabo ahaadeen oo isku dhawaadeen qaraabanimadii meesha waa ka baxaysa markii inta guur yimaado furiin ka daba maro dhibaatooyinkiisa lama soo koobi karo ilmihii waa rafaadahayaan waxa kale hadii leeyahay run yahay dhacaysa ilmihii markii la suro oo gabadhii tiraahdo haddii soo ugu biilahayn maaragtay ma hayn karo asagiina yiraahdo biili ma hayo mid kale sidii oo kale baar laaco in ayeeyo shay bihi qaadato ama hooyadiis ama hooyadeed oo aan ilma xanaanayn karin Soomaali waxay tiraahdaa waxay ku dhaleen kuma dhibaane waxay dhaleen baa ku dhiba marka waxa keenaysa da'da keenaysa hooyadaadu xawda ama gabadha hooyadeedu xawda ayaa ilmihii haynaysa waa wax dhalo waad ugu yar waa ku rafaadaysa dhibaato badan oo saameyn badan bay hadii leeyahay yahay leedahay ilmihii waa rafaadahayaan maaragtay ninkii laftigiisa samcad xuma ku dhacayso waxa la leeyahay naag buu furay war ma kuma raba maxay ma walaal guur hada diyaar uma hada guur way rabtaade waxay ka baqaysaa in maaragtay la furo gabadhiina maaragtay samcad xuma ku dhacaysa maxaa lagu soo furay sidii kufridiin u sheegay waxa dhacay reer miyigu markay ciyaarta tumahayaan ya ama magaalada ciyaara maaragtay ciyaar jaahiligi markay ciyaarayaan waxay yiraahdaan naag la furay wixii lagu furay faraqay ku wada taay marka samcad xumada gabdhahiiba hadii la ku dhacaysa maaragtay furiinku horta boqolkiiba 95 wax dhaqan xun way anigu waxaan been ku sheegayn nin baan 2 bilood xaafad wada degan guri wada degan
afar naagood buu qabay oo midda ugu yari ugu dambaysa ay xaamilo tahay gabar darisahay isbarteen qurux badan gabadhii bay heshiiyeen tii yarayda uurka lahayd buu fur tiina waa arooso afar buu ka dhig mid kale haddana ark saddexdii kale hartay hore ayuu mid furay wariyaan idinku daalina labada bilood afar naagood ayuu guursaday asagoo saddex furay midna haystaa iigu dambaysay marka maaragtay dhaqan xumada caynkaas saameyntaas u leeyahay gabdho yar yar oo maaragtay ayuu mustaqbalkoodii ku wada cayaaro garoob hadii la ku run yahay ka dhigay marka si Sheekh Jaamac uu sheegay ragaan guur rabin baa jiro la yiraahdo arabada shahwaani oo maaragtay raba meel biyaha hadii la ku run yahay iskaga daas gabdhihiina waa iska masaakiino maaragtay nin bay u baahan yihiin maaragtay waxay leeyihiin nasiibkaaba qab waxaad arkaysaa qaarkood ayadoo leeyahay ninka iska naaga badan buu nasiibkay baan qabaa maaragtay dadku kala dabcad weyn marka saameyn aad u ballaaran ayuu bulshada ku leeyahay saan hore u sheegay dadkii gabdhaha iska guursaday markii furun yimaado dib baa imaanaysa maaragtay meher baa la isku qabsanaya aqal baa la isku qabsanaya maaragtay xuquuq badan oo uusan ninku bixin karin baa imaanaysa waa lagu kala dhimanaya marka aad baad u mahadsantahay maxaad raacinaysaa halkaasi nabadoon sabdow saameynta taas waxaan leeyahay labada qof oo isfurtay ilmaha ee dhalaan waxay dhibaato ku qabanaysaa marka hore wiilkii iyo gabadha isfuray aaba isxiriirin oo qaab cadowtinimo waxaa laga yaabaa gabadhan la soo furay ninka iyo guursanaa in ninkaas dhibaatadiisa wixistan ay ugu sheekayso ay tiraahdo saani ugu sameeyay iyadoo macnaha iska dhigaysa qof wanaagsan laakiin arintaas waxay saameyn ku yeelanaysaa ilmahaas lagana yaabo inay wanaagsan tahay taas waxay keenaysaa in ilmihii oo ninkaan sababta ninkaan gabadhu u jecel yahay ninka gabadhaas xumeeyay oo xaaskiisa hadda uu la joogo xumeeyay ilmihiis ma hagaajinayo wuxuu leeyahay war naga dheeree waxaan oo ninka saas ku galay ilmihiisa anaga naga wad macnaha in daawadii iyo dhibaatadii oo dhan gabadhii dusha ay saaratay iyagoo isagoo qabo haddana markaas isla markaa meesha furiin kale uu ka dhasho sababtoo taa waxaa waaye dhibaatada ninka gabadha uu ku sameeyey ninkii ku abuurtay ninkiina ilmihii dhibaatada ninkaas sameeyey ilmihii u qaaday idan waxay rabtaa ninkaas dhibaatadiisa ay sheegto ilmahana ay u koraan oo si fiican loo hagaajiyo looga warqabo oo aabba kale hela maadaama aabihii hore waxaa kaloo dhibaatada ka imaanaysaa caasinimada taa ilmaha waalidka qaar caasi u keen meesha ka dhalataa sababta ilmaha hadii aad waajibkaada ay gudubeyso ilmaha waajibkooda ma gudanayaan oo aabanimo ma yaqaaninba aabihiisa aqooninba hooyadan iyadoo xanaaq ka muujis ay leedahay cunugan aabbow kuma dhalan aabaha mar hore dhintay macnaha dhibaatooyin badan oo meesha ay ka asiibanta ay ka bilaabato taasna way dhibaatooyin Sheekh Jaamac isla arintan laftigeeda marka la kala tago saameynta waxaa ka mid ah oo ragguna ay ka cawdaan dumarkuna ay ka cawdaan caruurta oo la kala kaxaysto si aan waafaqsanayn sharciga caruurta oo la isku diro oo kale hooyada ay tiraahdo iyadoo markaa caro u qabta aabaha ay tiraahdo waa aabe xun waa caynka waa noocaas aabihiin ma ahan waa aabihina dhankiisa intii uu gacanta ku hayay ee caruurta ahayd uu saasoo kale hooyadii uu ku diro markaas ay noqdaan dab iyo baasiin taas ka waran shariicada maxay ka qabtaa bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ilmaha horta hooyada in ninku hadduu ka leebo ilmaha oo islaanta inuu furayo go-aan noqoto oo furayo ciddii xadaanin lahayd iyada ugu xaq badan waa inuu iyada ku biilo oo hay uu yidhaahdo uu kaga warqabo ku dhaqaaleeyo ilaa ay ka guursanayso ama ilmihi ay mumayiziin ka noqonayaan hadday mumayiziin noqdaan oo 6 jir 7 jir ay gaaraan waxa weeye iyaduna markaa inay guursato iyagana la dooransiiyo oo la yiraahdo ma hooyadaa baa la noolaanaysaa ama aabaha baa la noolaanaysaa isagu markaa kii uu jeclaysto ayaa markaa lagu darayaa sharciyadu saas weeye isku dirku isagu waa shay muharram qaadicu rahim la yadkhulu aljanna yiri nabiga kaleey salaatu salaam hadii qofkii marka uu sabab u noqday inuu wiilkan canugan iyo aabiis uu kala gooyo ama canugan iyo hooyadii uu kala gooyo qadciga isaga ka shaqeeyso ma isaga dambiga qaadanaya qaadicu rahim la yadkhulu aljanna inuu mataqaana waan dhacaysaa in badan bay dhacdaa marka furiinku waxa weeyaan runtii musiibada badan buu leeyahay in marka qofka iyo wixii isdhalay la kala gooyahay aday waxay ku keenaysaa inaad naar ku waarto oo helo naar ku noqoto leano waxaad kala goysay laba qof oo isdhalay baa kala goysay marka arin shariicada ku foolxun bataatan baa in shariicadu maqli karin weey in qofkii iyo wixii uu dhalay la kala gooyo hadii kalba ilaahay qadaray oo furin dhacay reerkii dumay ma dadkii in la kala gooyo waa in habartii ama mataqaana lagu xaruuriyo canugeedii ama habartii hadii hayso aabaheed ay ku xariiriso mataqaan canuga aabaha ay ku xariiriso saasa loo baahay masalada ramayna ku noqdo waxay masaladii dhaqaalaha burbur ma keena bas ma keeno
masaladaas waxaan waafaqsanahay dadka yiri burbur buu keenaa xadiiskii saxiixeenka oo nabigu markuu dhahay sallallahu alayhi wasallam todoba jirta maalinta qiyaamada ilaahay hooskiisa u harin doono waxa kamid ah rajulun da'at wa imra'atun la tuhasabin wa mantaqana wa jamal islaan nimay u yeertay naag mantaqana ama sharaf iyo jamal bilaysi cid fiican ka dhalatay tiri guurso oo yiri inni akhafu allah rabbul alamin xadiiskaas waxa lagu fasiraa ama isna arintu zina ahayna ay ugu yeertay ay guur ugu yeertay isna sababtu u diiday oo yiri ma guursanayo oo shir amaadan xuquuqdeeda ka bixi karin xuquuqda gabadhan ay u baahan tahay armaadan dabool karin oo ah mataqaana dhaqaaleed marka dhaqaalaha in la fiiriyo maantay waxaad arkaysaa qof 200 qaato 4 reer leh ama 100 bar mushaarkiisu ma dhama 4 reer buu leeyahay hada waa dajaal wey seebu u hayaa dhawaantan asbuuc dhow waxa ay soo martay dacwo gabar oranaysa tobanay anug baanin u hayaa 3 reer buu leeyahay biilkii markuu guursadaba hoos buu si dhacay anigu aan qaadan jiray waa ku rafaaday gabadhu markay 3 anug ba ilmuhu gaaraan waxa weeye ribaadka ninka ku jira waa ka daran yahay ribaadkeeda mid calooshi ku sidaa mid musqushu jira kaal iga dhaqbo leeyahay mise oo saqdi mid waxa weeye waa jiran yahay aad u leeyahay isbitaal baa la geenaya haddii 3 dhaafan iska badaawa 7 iyo markii gaaraan marka qofkan amalka inta la eeg hayso ribaadka ku jirta waxay tiri haddana waxa iga daran kuma haystay tiri mataqaana garaabid iyo waa ka xumay dhibka ku haystay waa ku kaalmo wax yar oo daqnasho xataa ma helaayay tiri hada musiiba way qofku waa in mataqaana hooyada in loo daqnado oo nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam allahumma inni uharriju haqq ad-da'ifayn al-mar'ati wal yatim ilaahay anigu waxaan xujada ku oogaya oo dhibaatada soo gaari doonto u cadeynaya ninka labada daciifka ku xad gudba haweeneyda iyo mataqaana iyo canuga awoonka labadaas waxa weeye xaalkooda caadi ma wartaman canugnaa ku haysa inaad mataqaana dhaqaalaheedii isbitaalkii iyo wixii aadan kala shaqeyn oo gabadhi jaariyadaada u shaqeyn lahayd aad u heli karto aadan u keenino waxa weeye aad cidlo uga dhaqaaqdid maalinba mid kala guursatid 2 3 4 biilkii hoos u sii dhaco ileen wax masayrka la yiraahdaana waa masaysan tahay bukuliya ninka ma laali waxay way masaysan tahay naagtan hadday masaysan tahay de waa sunna kowniya gabadhu inay masayrto markii la guursado inay daqnato oo ay tiraahdo de waxay og tahay wax walba hoos u dhacayaan Soomaaliya nolosheedii marka in waxay ahayd sidii wadayaashuba ay sheegeen markii ay reerku iyada xataa cuslaato oo meel caruurta laga soo galay way 4 iyo 5 iyo 6 ay dhasho inuu yiraahdo de markaan caruurta kuma dhex jiri kare maadii ogolaatidana ma taqaana waa yahay iska guursay dhaasha moogta laakiin tiyo daadii labaad iyo ku jirtay tii koowaad baan 2 guursanaya 3 ka dhigaya markaas biilka hoos u dhacaya markaas oranaya waa marsaysan tahay ma war masayr ma haya nolosheedii baan laahay waa ii dhaaranaysa gabadhaas waxleeda inaanan waxba masayr dan kala hayna noloshii baan weysanahay ilmihii baan ku rafaadsanahay ila korin maayo ila yeeli maayo aad baad u mahadsantahay saamaynta furiinka gudaha ayaad xooga saarteen oo aad ka hadasheen gaar ahaan Soomaaliya dibadda waxa la leeyahay waxa Soomaaliya ka jira aad bay uga daran yihiin waa laba jibaar arintaas waxaan weydiinay aqoonyahan Cabdullaahi Xagaley oo jooga dalka Norway bismillaahir rahmaanir rahiim runtii wax la qiyaasi kara maaha wuxuu aad iyo aad uga dhib badan yahay kii Soomaaliya ka jiray wadamada aan joognay reer galbeedka ayaga noloshooda iyo systemkooda ayaa waxay ku dhisan tahay marka horeba wax anaga aan caafinimada u naqaan markaan Soomaaliya joogno waxay ku dhisan tahay in awlaadaada aadan canaanan karin waxay ku dhisan tahay madoodu ku dhisan yahay in canugaagu 12 sano markuu gaaro isagoo uu tashan karo oo yaani waalidkeen la joogay lama joogay labada midku doono uu dhihi karo waxay ku dhisan tahay canugu 18 markuu gaaro inuu yahay yaani meel nin ay u furan tahay baarka qamriga iyo discotheque la tagayay iyo intii Allah intii aybu dhaqan iyo diinba ay yaani u sahlayso laakiin anaga muslimiin naga mamnuuca wadankii marka dhaqankiisa noocaas yahay haddana systemkiisa nolosha ay wax badan oo runtii insuriyad qarsoon ah ay ku jiraan oo horumarka qofka soo galootugaahba loo ogol yahay inuu hore u maraba ay tahay wax xadadan ayaa haddana waxa haday dhacdo in hooyadii iyo aabihii ay meesha ku kala tagaan ayadoo ay caruur joogaan dhaawac halka ka dhalan kara runtii mid hadal lagu koori kara maaha khaasatan Soomaalida hadii la yiraahdo inta badan waxaan u badannahay dad caruur badan leh alxamdulillah waxa laga yaabaa in ugu yaraan 2 caruur ama wixii ka badan ay guriga joogaan marka reer 5 leh ama 4 leh ama 6 marka ay kala tagaan hooyadii waxaad moodaa inta badan hooyada looga tagaa caruurta oo guriga ninka ka baxayo waa aabbaha waxaad moodaa hooyada xuleedka inta laga inaysan qaadi karin maalinta ay meesha joogto markay odagu tago hooyadan intaas oo caruur ay ku harto ayaa marka hore systemku wuxuu qorayaa in hooyadaas dhiban tahay ayadoo nabad qabta oo caruurteedii ka adag
oo islaba ha ku hayso oo laga ka maqnaade yani maarayn karta nolosha caruurteeda ayaa system ahaan waxa loo qorayaa hooyo dhiban maxaa yeelay lix caruur ay haysaa wax macquulaba maaha ayaga xaqooda marka halkaasay dabagalku ka bilaaban karaa canugiyo laga yaabo inuu banooni u dheelaayo lugta wax ka soo gaareen ayaa laga yaabaa in lagu qablo leeyahay hooyo kaligeed oo caruur badan haysata waxaad moodaa in ayaga laftooda marmar yani dhibaatada ka shaqeeyaan ba qolooyinkan ee macnaha dawladda ama dawladda hoose markaas qofka uu degan yahay sababtoo ah hooyadii 5 caruur leh ama 6 oo laba waaweyn ay iskuulka tagi karaan afarta kalena laga yaabo midna labana in graphic wada hada bilaabeen midna xanaanada caruurta la geeyo ayaa laga yaabaa 2 jeer ama 3 jeer inay iskoolka kala tagayaan oo iskooladoodu kala duwan yihiin nus saac ilaa saacad gudaheedna ay u dhaxayso waqtiga ay iskoolka galayeen marka inay kuwana geyso oo laamiga dhaaftiiso hadii iskuulka xogaa ka fog yahay ay la gaarto kuwa yar yaraana ay soo wadato marka hal mar heerku waa inuu wada baxaa subaxdii hadii xataa saacad u dhaxayso waqtiga la geynayo meesha caruurta iyo kuwa iskuulka la geynayo ayadoo taas ay jirtaa waxaa laga yaabaa in ayada waxyaalaha ceyrta ah ee la fiiyo laga gooyo oo la yiraahdo haddii adigu laftaada iskuul dhigan lagu siin maayo marka iskoolka luqadda loo diro ama waxyaalo lamid ah meel baraagsiis ay dhahaan oo dad lagu shaqeeyo mushaarna aan ku qaadan lacag ceyrsan u qaata marka waxa laga yaabaa inta badan iskoolka luqadda loo diro hooyooyinka waxa laga yaabaa iskoolka waqtiga ay galaysay waqtiga anigu xanaanada geynaysay iyo kuwa kale markay laamiga inta goysiiso iskuulka geynayd inay inta isku mar yihiin marka iyagii baa ku sii cuslaynaya waxa laga yaabaa ayadoo kuwa xanaanada caruurta doon lahayd in iskoolka shir uga soo dhaco leeyahay ama cunugiya maartay ilma kala la dagaalo waxa leeyay xaalad degdeg ah jirtay kala nooymo marka waxa la arkaysaa cunug 8 jir ah ama 7 jir ah oo furo qoorta u suuran yahay oo la rabo haduu kuwa kale ka soo hormara asaguna uu isdabaro guriga yimaado waxa inta tu sii dheer shirar la qabto oo iskoolada marmar la iska waco waalidka oo dhan la isugu yeero iskoolada haday ka maqnaato waa loo qorayaa hooyana caruurteeda u imaan baa loo qorayaa marka culaysku waa badan yahay waa tahay kaasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Cali Xagaley oo dalka dibadiisa ku sugan qaybaha dambe ee barnaamijka diiradda jimcaha ayaanu soo gaarnay oo aanu ku eegayno maxaa u daawo ah furiinka oo ku badan Soomaalida dhexdeeda dal iyo dibad intaba waa arinta ugu dambaysan wadan kufridiida xagaaga oo aan jeclahay in dhamaantiin aad wadaagtaan su'aashan maxaa u daawo ah furiinka maxaa looga hortagi karayaa furiinka waxa u daawo ah waan isleeyahay diiradda saari karaa ninku inuu dadaal badan la yimaado raggu inuu istabciyo shariicada la eego ilaahay laga baqo cabsi ilaahay gabdhaha lagu dhaqo gabadha iyo ilmahaaga aad mas'uuliyadooda qaaday inaad ilaahay uga cabsatid markaasaad waxaad noqon kartaa aabba saxiixa waxna dhaqi kartaa mas'uuliyadaaduna saxiix noqon kartaa waxna aad eegi kartaa laakiin markaad awalba qof iska noolahayd mas'uuliyadna aanay ku saaray oo aad tiraahdo gabdhaha waxaan soo tirinayaa marya ka furkooda soo tirinayaa uu yahay adu baaluqday inaad gabar walba marada ka furto taas mas'uuliyadna ma aha ragga Soomaaliyeedna waan uga digayaa daawadii waxa weeye raggu inuu mas'uuliyad la yimaado gabdhaha in arrinka laga daayo taas aan cilada looga bixi karaa aabba wanaagsan in la helo baarintaas ku baabi'i karnaa aad baad mahadsantahay haye nabadoon guuleed bismillaah horta waxa arrintaas looga hortagi karaa sideedaba qofku hadduu diinta fahmo oo diinta la baro wax xumaana qofkii hadda ilaahay hanuun uu sallamaagin waa gooni qofka in hadii diinta uu barto oo kuna dhaqmo wax xumaana oo dhan waa ka suurahayaan furiinkuna waa joogsanayaan marka koobaad in ragga diinta la baro xaquuqda dumarku ku leeyahay la baro oo barnaamijkaas culimada waxaan leedahay Sheekh Jaamac hadda nagala joogo barnaamij xuquuqda haweenka ku saabsan in la qabto oo maaragtay ragga la wacyi galiyo dumarkana hadii la kuurinayo qofaan cilad lahayn ma jiro maaragtay ayaguna maaragtay sidoo kale wacyi galin bay u baahan yihiin iyo dulqaad iyo laftigooda diinta in la sbaro ay u baahan tahay laguna dhaqmo arrintaas waxaan leedahay shariicada islaamka oo lagu dhaqmo oo gabadhu ninka ku xadgudbin oo xuquuqdiisa ilaaliso ninkuna uu gabadha ku xadgudbin ayaan maaragtay looga hortagi karaa ma isleedahay hadda ayaan dhaxdaas nin baan hotel wada seexan gabar buu yiri ilado waa warsado waxaan yiri maxaad dhaqaalahaysado maxaad qaadataa wuxuu $100 baan qaataa haye xaas hore ma lahayd 3 baan lahaado waxaan yiri 3 $100 waxaan ahayn miyaa ku soo gala xoolo miyaad maaragtay iyo xoolo baadiye ama balad oo kala miyaa leed mali hibiyi mali waxaan tan maxaa siinaysaa marka
وحجر إلهي بأرسق لنا قبا كل دوني ما هي عندي كل دوني صح كل دون بلا كاركتر وحني يهلا قبح شاسته هشام مركا العموم رج يضمر به حقوق ده إسكوليهين إلا براء يكون الرقمان الجوع يجريه أيان ماركتي looga hortagi karaa midda kale waxyaalaha hadda waxaan rabaa wax yar inaan ka taabto sadow iyo maaragtay la yiri xoolo shariicada ku banaan ma jiro waxaan qabaa anigu inay jira shaqaan waa nala joogade shariicaduna ay sadiidahayn oo maaragtay dadkana furinkuna ku yaraan hayo lagu xariirin karo midalan baadiyaha iyo markaan joogno ee magaalada waagi hore gabadha markii aabaha wax la siiyo oo tolka Soomaaliya la siiyo abtigu tulud buu lahaa maaragtay hooyadu tulud bay lahayd waalidka in la xariiriyo sida rag qaarkiis aan aragno maaragtay goortii waalidka yimaaday yiraahdo maxay naga soo dooneen maxoolaan u hayay maxaa maaragtay anaaba asxaan u faro gabar ka guursado ibteeda hadee leeyahay ka hay war waalidka rago waxaan leedahay war waalidka sodohda waa hooyadii labaad aab sodoga waa aabihii labaad war dadka qaraabada هل حرير الرجع وحاسد اللي يكونوا هلا برو قبلنا سيدو كلا إني قرابة ماركت حرير الصو صدق ده حرير الصو ماركت المهر الله إنكم ناكل أما كلمة أو كفري أي حرير الصو ماركت أهل كحرير الصو ما أيام كل وحاسد الدين كسرع هذا قبته dadka ehelka inuu isxariisho Soomaalida lana dawaaba ehel waa dad maaragtay muslim oo qof walba qofka kale walaalkiis yahay in halkaas in diinta xoog la saar barashadeeda iyo ku dhaqankeeda ayaan rabaa aad baad u mahadsantahay nabadda sabdoohay bismillaah ana waxaan ku waan lahaa labada waalid inay isku naxariistaan oo shariicada loo fiiriyo tan kale waxaan rabaa hooyada iyo aabaha inay fiiriyaan xuquuqda zawjinka oo qofka waalidka aabaha xaq uu leeyahay inuu ilaaliyo oo dhowro oo gabadhaas uu ku dhowro gabadhan waxaan dhihilahay xaqa waalid oo xaqani oo zawjka uu ku leeyahay iidan inay ilaaliso labada waalid aabaha iyo hooyaha oo labada dhinac ka yimidna inay ilaaliyaan xuquuqda labadaas isqabta ee u leeyihiin inay iyaga si xorriyad u dhaqmaan ay ilaaliyaan aysan faraha la soo gaadhiyo dhibaato arkaan hadii xal karaan inay xaliyaan waxa kale oo rabaa inaan sheego dhibaatooyinka inta badan waxay ka yimaadaan naaga waxa jir lacag leh oo ragga uu furaayo oo le hay amaana saayibtar banaanka ka tahay bacdaada qaado marka isla markiiba ninkaana asal marka hore dhaqaalo ku raacay ay ku maraacin wax oo diiniya ku maraacin dhibaatadii taasna ay timaado dibkani gabadhaas ay u geysatay in gabar kale uu ka jaro waxa kale oo ayna waxa ula jeeda dumarka qaar waxa ku jira kuwa iyaguna sabab u ah furiinka sabab waxaan ka wada oo iyada warkeeda rawa inay socoto oo awood oo qoyska dhan inay gacanta ku dhigto kuwa kale iyagana saas oo kale oo ragga kamid ah oo lacag ilaahay siiyay iyagana rawo in awoodi gabadhii ay lahayd intii reerka uu lahayd dhan asaga inuu gacanta ku hayo sababta waxa keenay lacagtii keenis in meeshii dhibaato badan ay ka dhacdo marka daawada adoo soo koobay daawada waxa labada qoys isqabta inay isdooraan xaqa gabadhan la ilaaliyo xaqa hadii la kala tago oo wix awoodisa gabadhaas ilaahay wuxuu leeyahay faqdu saacati min saacati waman qadara alayhi rizqahu falyafaq bima ataa Allah marka wix awoodisa inuu iska xasdin taasaan ku waanahay oo wanaag iyo ehelnimadii iyo muslimnimada ay ku isantahay oo dadkan ay ku walaaloowayaan intaasaan rabaa inaan aad baad u mahadsantahay ugu dambeyntii waxaan siinayaa Sheekh Jaamac Cabdisalaam isla arintan sheekana kulay qof walbaahi fikirkiisa iyo taladiisa ayuu dhiibtay waxa uu daawada ah waxa looga hortagi karayo cudurkan halista ah ee bulshada ku dhex jira dal iyo dibadba ee furiinka ah bismillaah alxamdulillaah salaatu wasalaamu ala rasuulillah daawada intaan u gudbin qodob yar baan xagga dhaqaalaha kaga noqon lahaa waxaan oran lahaa runtii odayaasha ay sheegeen iyo sabtiyo soo sheeg labaduba waa jiraan oo waxa weeye xogaa dhaqanada waa kala gedisan yihiin dadku markay beeraleeyihiin waa dad ka waaya aragsan dadka xoololeyda oo dhaqankoodu ahaa nolol yar bay iskaga nool yihiin beertooda ay fashaan mantaqaana marka dhaqan aan aad iyo aad ugu bogay way hadda koor yar baan mar jawlo wada galnay reer boor xakaba marka waxaan yiri niyo meeqa xasbaleeda wuxuu yiri hadda hal xasbane waa yar yahay 20 jir macamul dhow 20 buu jiraa oo nin sheekha wuxuu yiri hadda tii labaad baan guursanaba oo niyo miyaa shaqaysaa waxa u soo saartay wuxuu yiri wallahi waxa ma soo saaru yiri aabahay baa wuxuu isii yiri hal hektar oo dhula iyo sac salaba sac miir maahan haweeneydii marka waxaan u xiray yiri hektarkina way beerataa labadii sacna waa u xiran yihiin xoogaan waa u soo qarqaraafa maartay hadda wuxuu yiri sicii dhowr buu noqday 4 5 6 tobanay isku sii dhow yahay hektar kale hadaan gato mid kale aan guursanay iyada tacbays
waxaa ka jirta meesha la yiraahdo noloshiiba adiga marka ninkaas 30 sano markuu gaaro 20 caruur leeyahay wax mushkila oo biil ku hayaana ma jiro mid walba dhulkay qodataa qudaarteedii raashinkeedii galeedeedii digirteedii istinteeda u soo baxaysa si ceedan waa maalaysa moogtaa bulshada iska badanaysa waar bulshada waxa soo baxaysa hayla ninkii markuu inta afar haween qabo midiba ay 10 aan maaragtay iyada reerkiis dabariyo waa la sheegay hadda nin mujaahida oo runtii la yiri ilmihiis ma dhaq 60 bay sii marayeen oo dhalinyara waa dhinacan baay bukol hadda waa artay jihaadkii dadka iyaga ugu badan maxaa kalifay furiino ma jira waa tarantaas haweentii dhulkada maaragtay waxbay la soo baxay caqabadaha la isku furayo ayaanan imaanin caqabadaha la isku furanayo ma imaanayaan islaantii waxa weeye dabcan waa markii loo daqnado la yiraahdo qoftan way shaqaynaysaa oo adiga aadan wax reerka xataa dhaqaale ku maamulin reerkii ma taqaana waxaad ku soo daraysaa malaba qoftan khaliha waxeeda la soo baxdo ilmeeda haysato dhiba isugu imaanaysan ma jiro moogta marka adiga waxaad ku saacidin kartaa ku saacid mana isku dhacaysaan laakiin dadkeena nolosha ay ku cusub tahay oo iska khariban oo xoololeeya waxa weeye waxaan u baahanahay inaan $1 kharash garayno marka xagee waa isku dhacaynaa anaga gabadhii waa isku dhacaynaa nolosha ma dhismaysa hadii aan labadeeda 300 miiska loo saaray marka dhaqanka saas ku kala duwan yahay waana laynaga dhaqan fiican yahay dhinacaas in baa igu dhaayay meelahan baan soo degay afgooye iyo waxaan ka baqay gabar baan guuriyay gabadhii waxay tiri abo ninka lama noolaan karo soor iyo ma taqaan on maalin joogta waxaan ku yiri waa laynaga dhaqan fiican yahay gabadha waxa tiraahda waxay inta hartay inaan meesha ka kaxeeyo dadkooda u geeyo baan ku fakiray waxaan ku yiri wallahi waa laynaga dhaqan fiican yahay gabadha bar dhaqanka waa dhaqan fiican leh sababta maxaa weeye inuu qofku soor iyo qudaartan freshka ah oo la miiraayo inuu ku noolaado dalka waxa weeye waa nolol fiican weeye waa ka fiican tahay bariis dibadda laga keenay gabadhan waa ka caafimaad badan waan ku xoggan marka caleenta dhulka ka soo gaaysa iyo soorta in la cunaay waxa weeye waa reer magaalnimo iyo caafimaad iyo iqtisaad iyo taranti dadka iyo khayrka oo dhan baa ku jira haddaan u gudbo marka mawduuca weydiisay oo ah maxaa u daawaa burburka waxa weeye si odayaashu sheegan waa runta waa diinta in wax loo noqdo way oo dadku ay diinta bartaan oo dhaqan galiyaan مثلا فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف باله الله سبحانه وتعالى معروف waa maxay marka wixii sharcigu taariifiyo wana ku sheegay bulshaduna ay marka ay mataqaana ay ku taarufta in wanaagin wax kasto bulshada agteeda ka wanaagsan waa inay wanaagsan مثلا in caruurtaada caafimaadkooda ka warqabto anigu biilka u dooray oo u soo tuuray maxay galid caafimaadkooda ka warqamin shaqada ay gabadhii ay ku mashquulsan tahay ma ka adag tahay mise kuma filaadan ka warqamin biilka aan mataqaana wax reerka inuu ku filan wax badan oo maata wax alla wixii bulshada ay ku taarufto khayr u aragto waa in gabadhii lagu la taarufo mid kale labadooda mas'uuliyad ba shariicada ay noo sheegtay ninka waxa la yiri nabiga wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli ninka idinku khayr badan waa ninka ehelkiisa uu khayr badan ehelkiisa jeceliin anuguna waxaan ahay ninka ehelkiisa idinku khayr badan baan ahay marka caashila weydiin waxay tiri kaanat fi khidmati ahlihi ehelkiisa u khidmeyn jiray halka inagu hadda dhulkan dhibaatada badan ay ka jirtay ilaa iyo ka soo bilow maxaan ku yiraahdaa ilaa iyo jawhar ka soo bilow haweentu waa raranta waa la raraya war maxaa keenay dumarka in la raro subhanallah waxaad arkaysaa kuwa janaal inta cawska qaada geenaya magaceedii oo ninkii waxa la yiri raashinka cawska ay ku soo gaday buu gabadhii oo qaad ku cunay kaasoo kale waa helo naar baan oran karnaa maxay tahay nolosha noocaas nolol zifti weeye oo diinta iyo aqliga midna waafaqsanay gabdhaha mid baan waxaan ku yiri geel buu wadaa gabadhii way raran tahay deer awr baa ku jirta wariyaa maxaa gabadha u rartay ma awrta rartay ya gabadha maxay u rartay awrta ma rartay geel rarka loo marabo gabadha loo rabo saas ku jawaab marka meeshan waxa ka jira dadka mataqaana daryeel aan dumarkii lagu tuntay oo xaqoodii la dhumiyay oo waxay ahayd حتى حركة الملك أي كتلسان ممنوع قوان كسر صارتون ترى قبر دوش وحكوش تمل أركي كرو إن ترى هذا يعني مصيبة كتاب المهم إن قبلها الوتر خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ماشي أوليه النبي عليه الصلاة والسلام وقلي ليه استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع أعوج قبلها خير دردارم ومتقنا توسية وحلقة أبوري فيرغلوا عن ودا isku dayday inaad toosisid way jabaysaa marka mar walba inaad ku carootid oo ku qeylisidaa isku dayne inaad u dulqaadatid oo u samirtid isku day iyadana maxaa laga rabaa iyada waxa laga rabaa ninkan sida qaa'idka loo yiraahdo la adeeco oo laga dambeeyo reerku soo qaa'id inuu yeesho ma shirkad aan ra'iis lahayn ma soconis oo aan wax u go'aaminaynin wax faysalay waa inuu jiro oo go'aankiisa lagu socdo hadii kale hal subax baa la kala tagayaa ma hadii waliba oo sida nolosha qarbiga ay tahay mid walba go'aankiisa uu leeyahay mid laga amar qaadanaya uusan jirin marka ninkan isaga qaa'idkii amarkiisa waa in lagu shaqeeyo
bal nabigu wuxuu gaarsiiyey sallallahu alayhi wasallam inuu yiri haddaan qof amri lahaa inuu qof u sujuudo haweeneydan amri lahaa inay u sujuudo ninkeeda laakiin sujuud cidaan ilaahay ahayn iskama laha ilaahay oo kaliya loo sujuudi karaa heer kale gaarsiiyey fiiri marka waxa weeye ninkan xuquuqdiisa wixii ay haddii ay gabadhu shanteeda tukato oo ninkeeda adeecdo oo waxa xadiiska saasa waad garanaysaa jannada ayay galaysaa rabbigeeda ay waxay ku galaysaa su'aal la'aan marka inay ninkeeda inay qanciso oo ay maaragtay u qaboobaato oo ay u samirto in badan mataqaana hal haween oo kale iyo hadduu qaba in la isaga sabro aad iyo aad bay u daruuri tahay oo janno hadday rabto saasay janno ku galaysaa isaguna sidaas mataqaana siday odayaashu u sheegan way arrintu in dadku sharciga u noqdaan xal ka sokeeya ma jiro nolosha qalbiga in wax lagu dhisaana burbur iyo dulinimo iyo waa ka hadda waxay beerayaan in mataqaana gabdhihii furiinka bato oo maaragtay usra baa anaga wax usra la yiraahdo nolosha shuuciyiinta nimanka la oran jiray waxay yiraahdeen anaga cadawgeena wax usra la yiraahdo usra hadii meeshii timaado waxa weeye bulshada gacanta kuma dhigi karna laakiin hadii bulshada ay tahay xoolo dareerayo oo maaragtay isfulfulaya marka dhinaca rabnaa ku xayn karna marka iyagu saasi u sacinayaan shartooda Allah naga xijaabo tawfiiqadana Allah na waafajiyo aad baad mahadsantahay dhageystayaal guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha waxaan u mahad celinaynaa dhammaan akhyaarta nagala qayb gashay Sheekh Jaamac Cabdisalaam Warsame oo kamid ah culimada diinta islaamka iyo indheer garadka kale nabadoon kufridiid nabadoon guuleed iyo nabadoon sabtow waxa kale aan u mahad celinaynaa Cabdullaahi Xagaley oo dhanka dibadda isna ku sugan oo barnaamijka nagala soo qayb galay iyo hooyooyinka aaraadooda iyaguna dhiibtay tan iyo barnaamij noocan intaynu ku kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ayyuhal muslimuun ayyuhal muslimuun ayyuhal muslimuun